اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan isku dayi doonaa daris kooban in sha allahu tacaala oo ku saabsan طرق min طرق العilm, siiba masalada la yidhaahdo alqiraa'a oo wakhtiyada dambe waxaad moodaa waxna waa la akhriyaa oo waa la dhigaa, haddana ma soo baxaan dad طulaab اlcilmi xaqiiqiina ama wax lama barto. aqoontii meelaha lagu waday cilmi dhagood bay dhaafi weyday, wuxuu dadku dhagahan ka dhagaysto. marka waxaan rabaa inaan waxoogaa soo bandhigo ku saabsiisan salafi اlumma ama ummaddii muslimiinta ahayd culamadeedii iyo dadkeedii hore, iyo bal siduu ahaan jiray wax akhriskooda ama wax akhriska say u qiimayn jireen ama say uga faa'iidayn jireen, oo aynu barbar dhigno wadcigan casriga ee maanta lagu nool yahay iyo sida dadku ay u isticmaaleen, siiba dadka muslimiinta ama caalam alislaami. ugu horreyn waxaynu naqaanaa qur-aanka ilaahay subxaanaه wa tacaala wixii ugu horeeyey uu soo dejiyey, say culamaa ilxadiis tilmaamayaan awal maa nazl oo qur'aana waxay ku tilmaamaan gaaru lxiraa markuu ku jiray inay ku soo degtay suuradda iqra bismi rabbika aladii khalaq. ilaahay uu nebi moxamed leeyay calayhi الsalaaةu wasalaam iqra bismi rabbik, akhri la leeyay nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam. qur-aanka iyo waxyiga iyo waxa lagu soo dejiyey akhri, walxaal aad kaalmaysanayso ama ku bilaabanayso isimka rabbiga, ama akhri adigoo magaca rabbigaa ku akhrinaya, yacni idankiisa adigoo ku akhrinaya, rabbi subxaanaه wa tacaala uu ku wakiishay. ama akhri ilaahay magaciisa laftiisa akhri. saddexda tafsiir baa sheekh catiya saalim fii adwaaءi اlbayaan uu saaraya. ayan kaanat shanta aayadood ee ugu horeysa ilaahay subxaanaه wa tacaala laba goor buu ereyga iqra'a soo celiyey. iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa اlinsaana min calaq, iqra warabuka alakram, aladii callama biاlqalm callama اlinsaana maa lam yaclam. saddex shay baa rabbi subxaanaه wa tacaala halkan uu ku tilmaamaya. mid waa masalaة اlqiraa'a oo la soo celceliyey, oo ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala marka hore iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa اlinsaana min calaq. mar kale la leeyahay iqra warabuka alakram. mar saddexaad la leeyahay aladii callama biاlqalm callama اlinsaana maa lam yaclam. laba shay oo kale oo cilmiga ilaahay subxaanaه wa tacaala ugu mano sheeganaya dadka, iyo inuu qalamka baray inay wax ku qoraan. suurad kaleo qur-aanka ka mid ah rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa qalinkaasi wax lagu qorayo, nuun wاlqalami wamaa yasturuun. qalinka iyo waxay qorayaan malaa'igtu baan ku dhaartay baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala. suwarka kale ee isla makiga ee weliba dhowrkaa sannadood ugu horreeyey soo degay, faqra'uu maa tayasara min alqur'aanka baa ka mid ah. idan markaad eegto qur-aanka wixii ugu horreeyey nebiga ku soo dega calayhi الsalaaةu wasalaam waxay ahaayeen wax ka warramaya cilmi iyo qiraa'o iyo qalim, iyadoo la og yahay bii'ada uu ku soo degtay inay ahayd abcad bi'a can اlqiraa'ati wاlqalami wاlcilm. nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam dadkii uu la noolaa iyo bulshadii uu ka dhashay waxay dhahdaan min mucjizaat bay ka mid tahay in ummad aan qalinku qiimo ugu fadhinin oo cilmigu qiimo ugu fadhinin oo jaahiliye ku dhex nool, waxa koowaadee loo sheegaa uu noqdo qalimka iyo wax qorkiisa looga warramo. oo hadduu ahaan lahayd meel haqaafa taalloo cilmi yaallaanoo caynkanoo laga warramo markaa qalin iyo wixii la nooca, waxaa la odhan kari lahaa dee waa min waxyilbiah, waa wixii environmentka laga ogaaday. laakiin waa environment dadka wax qoraaba fara ku tiris yihiin, jahliguu tiro badan yahay, aqooni aanay jirin. waxaad ka garan kartaa inta badan ilaahay subxaanaه wa tacaala ee qur-aanka ku soo celceliyey masأalaة اlcilmi iyo fawaa'idda ku jirta iyo waxaasi
mar rabo markaa baabka inaan ka warramo laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo qiraa'adu ama wax akhrinta ummadda wax akhridaa bay yidhaahdaan waa ummad koraysa ama kor u socota maanta umamka horukacooda iyo horumarkooda waxyaabaha lagu qiimeeyo ee muashiraadka duwalka horu maray ama horumarka waxaan la yidhaahdaba lagu qiimeeya waxaa ka mid ah ummadda iyo inta ay wax akhrido illiteracygu intuu ku leegyahay waxaa la yidhahdaa ummaddaasi boqolkiiba intaasaa wax akhrida idan sida ay u kala badan yihiin umamka qaar baa waxaa la yidhahdaa hadda cid aan wax akhrinin ma joogto walidaalika waxay tilmaamaysaa baa la leeyahay ummadda tani thaqaafa inay leedahay ama aqoonta waxaa la yidhahdaa inay qiimo agteeda ku leedahay umamku maanta dunida waxay u kala horumarsan yihin bay yidhaahdaan sida ay qiraa'ada iyo cilmiga hantida ay ku bixiyaan u kala badan tahay umamka maanta dunida ka taliya waxbarashada iyo waxa ku saabsan GBD-ga waddanka uu leeyahay inta ugu badan bay ku bixiyaan halka dunida saddexaad laga yaabo 1% inuu noqdo waxyaabahay u qorsheeyaan inuu ku baxo tacliinta iyo waxa la halka ah qiraa'adu ayuha alikhwa waxay yidhaahdaan haddii cunadu ay jidhka quudiso wax akhrisku bay dhahaan waa ghadaa ilcuquul waa caqliga waxyaabaha kobciya waxaa lagu tilmaamay inuu yahay rafcun liljahli waa qofka oo iska durkinaya waxgarasho la'aan waxaa lagu tilmaamaa inay tahay qofka sida wax u qiimeeyo inay ku korodho siday aqoontiisu u badato waxaa lagu tilmaamaa inay tahay waa naafida ama waa daaqad kaaga furmaysa bay leeyihin cuquusha bini aadamka qofka wax akhrinaya wuxuu akhrinayaa bay leeyihin bini aadamka cuquushiisa wixii ugu fiicnayd ee uu soo saaray wax akhriska waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay waxaan xuduud iyo zamaantoona lahayn qofka bay dhahaa cimrigiisu waa wax yar oo tirsan laakiin qofka wax akhriya waa ziyaada fi lcumri bay dhahdaan waa qof cumrigiisa kororsanaya waa ziyaada fi tajriba waayo waxa aad akhrinaysaa wuxuu kordhinayaa tajaarib qofka kani uu ku helay 10 sannadood buu hal kitaab ku qoray idan 10 sannadood ee cumriga ka mid ahaa adigu waxaad ku akhriday dhowr saacadood baad waxaad ku heshay 10 sano wax qiimahooda uu joogay in la sameeyo ayaa adigu waxaad ku heshay dhowr saacadood walidaalika waxaa lagu tilmaamaa zamanku xad ma leh oo waxay leeyihiin aqoontu wax akhrisku waa qofkoo isku dayaya dunida intii maskax soo martay inuu la sheekaysto cabaaqirati alcaalam maanta markaad maktabaddaa tagtay kutubta islaamiyiinta aada akhrido waxa weeyaan wixii caqli weyn muslimiinta soo maray wixii ay qoreen kaanama aad imaamu shaafici iyo raggii la nooc ahaa la warramayso ama ay kuu warramayaan waxay yidhaahdaan akhrisku waa waxaan makaanku xadaynin ama meeli xadaynin oo dad badan oo aanad la kulmi karteen ama aanad arki karteen baad arkaysa oo aad la fadhiisanaysaa si kale haddaynu u tilmaamno waagii hore cilmiga shafaaha qura lagu qaadan karayay inaad qofka u tagto oo aad afkiisa ka soo dhegaysato laakiin markii ay dadku wixii ay cilmi hayeen waraaqa geliyeen ay gudaha ku qoreen waxa fududaaday inaad wakhti kasta aad dib u heli karto xataa iyadoo aan lahaynin aqoon-yahankii ama sheekhii ama khabiirkii waxa kan qoray iyadoo aan lahaynin in si fudud loo heli karo ummadda markaa aan abnaadeeda iyo dadkeedu mustawaha aqoontoodu aanu mid kor u socdo ahayn waa ummad bay yidhaahdaan maanta caalamka la joogo aan la socon karaynin bale caalamkan cusub waxay dhahdaan xataa mustawaha xoogsigu wuxuu ku xidhmay bay yidhaahdeen mustawaha aqooneed ee aada leedahay oo dadka wax aan akhrinin waxna qorinin shaqooyinka inta u soo hadhay baaba maxduuda bay yidhaahdaan waxaa shaqaba soo hadhay uu qofku qaban karo ayaa wax maxduuda ah si kale markaan u tilmaamno waxay dhahdaan maanta macaarifta dunidu siday usii badanayso sanad walba bay yidhahdaan aqoonta tan sayniska ah maalan 10 to 20% baa aging uu ku dhacaa bay yidhahdaan 10 ilaa 20 ayaa gabowba haddaad wax akhriyi weydo macnaheedu waxa weeyaan aqoonta aad xambaarsan tahay sanad kasta 10% ka mid ah laga baxay taa macnaheedu waxa weeyaan
toban sano dhowr iyo toban sannadood markaad nooshay haddii aanad dib wax u akhrinin macluumaadkaad sidataa waa macluumaad gaboobay oo dunida aan ka soconayn ama laga shaqaynayn. walidaalika waxay dhahdaan 30kii sannadood ee ugu dambeeyey aqoonta maanta dunida taalaaba leeyahay 90% waxa la cusboonaysiiyey bay dhahaan 30kii sannadood ee ugu dambeeyey oo dib wax badan ay ku soo kordheen. maadaama arrinku caynkaa tahay xataa caalamka dad yowgii gumaystay markay rabeen dadku inay horumarka ka ilaaliyaan waxay ka ilaaliyeen wax akhriska. maalan waddankan maraykanka la yidhaahda ninka madoowa ku dhaqan markii afrika laga soo raray dad badanoo afrika laga soo raray dad waxna qora waxna akhriya aqoonna labay haayeen siiba qaybtii muslimiinta hayda caalamulislaamiga laga soo raray siiba dad culamaaba xataa ku jiray. markii maraykanka la keenay si loo gumaysto waxaa laga mamnuucay ninka madoobay inuu waxna akhriyi karo waxna qori karo ama addoon ha noqdo ama xor ha noqdo wuxuu doonaya ha ahaado. waxaa laga reebay haba yaraatee shacabkaas dhammaantii inaanay waxba akhriyi karin waayo waxaa fududaanaysa bay leeyihin in la gumaysan karo ama lahayn karo. haddii dadku aanay waxna akhrinin waxna qorin waxaa fudud in la gumaysan karo. walidaalika baa waxaa loo arkayey maraykanka waagiisii hore ninka madow haddii qiraa'a lagu qabto waxay jariimo qaanuunku uu ciqaabayo. haddii la arko nin madow oo wax akhrinaya waxay jariima qaanuunkuna uu ogol yahay in la ciqaabo. qiraa'adu marka ama wax akhrisku waa micyaarka ama waxa lagu qiimeeyo ummadda horumarkeeda. waxaana yidhahdaa noloshan maanta casrigaa dee la-aanteed maba jirto xataa alqiraa'a tawdiifiya bay yidhahdaan. waxaad qiyaastaa magaaladan ay degan tihiin oo aan traffic waxaan ku qoran lahayn oo raashinka waxaan ku dul qoran lahayn oo dawada waxaan ku dul qoran lahayn ama se dadku aanay akhriyi karaynin noloshu say noqon lahayd. waxaad qiyaastaa magaaladu aan adresses lahayn waagi hore dee waxba lagu qori jirin soo maaha. waxaad qiyaastaa Toronto aan adress ku qorayn la wax traffic sign aanu qorayn wax raashin ku dul qoran aanu jirin يعني waxay noqon lahayd nolol adag oo sacaba in la noolaan karo. walidaalika waxay yidhahdaan maanta nolosha casriga dambe iyadu qiraa'o la'aantu suurtagalba maaha. haddaba qiraa'adu waxaa ka asala inay tahay cimrigii oad ziyaadinayso. ilaahina subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa cimriga iyo qiimaha uu leeyahay. qur-aan badan baa rabbi wuxuu ku dhaaranaya waktiga wاduxaa wاleyli idaa saja والcصr in الإنساaن lfي khsr iyo wixii la mida. ama ba uu nebigu leeyahy عalaيه الصلاaةu وaسلاaم qofka maalinta qiyaame ka zuuli maayaan gomadiisu dhulka oo yani waa la haynayaa ilaa iyo 4 shay la weydiiyo. 4ta shay 2 shay baa cumriga ku saabsiisan. taa macnaheedu waxa weeyaan waxyaabaha ugu fiicane qofku uu cumrigiisa ku xisaab ku isticmaali karaa waa masalaة الqiraaءة. waxaan markaa rabaa inaan ka waramo deris kooban oo ku saabsiisan marka koowaad salafi اlumma ama dadkeennii hore iyo qiraa'ada siday u arkayeen ama siday u jeclaysanayeen. intaanan kelmaddaasi markaa soo gudbin waxaan tilmaamayaa dhowr shay. kow waktiga waxa ugu fiican ee lagaga faa'iidaystaa waa wax akhris. waxaanay u arkayeen culammadii muslimiinta ahayd qiimaha wakhtigu uu leeyahay iyo intaajka uu soo saari karo. waxa ugu badan ee lagu soo saara mithaal haddaad maalintii rubuc saac ka yar wax akhrido rubuc saac intuu leegi rubuc saac more than 10 pages baad akhriyi kartaa. qofka ugu gaabiya qiraa'o qofka ugu gaabiya caadiga ahi maalintii haddaad 10 page akhrido sanadkii misaad akhriyaysa sanadku 365 maalmood soo maahay waxaad akhriyaysaa 3650. that means akbar mawsuuca ayaad sanad ku dhammayn karaysaa. ugu yaraan
buugga caadiga iyo normalka ahi waa 300 ilaa 300 iyo waxoogaa page 360 page meelahaasi ama 400 oo page markaad tidhaahdo haddaad maalintii 10 daqiiqo wax akhrinayso macnaheedu waxa weeyaan sanadkii ugu yaraan 10 buug oo noocaasi ama dhowr iyo 10 buug oo noocaasi aad dhamaynaysa yani mawsuuca fi cilmi alxadiitha ama mawsuuco في تفسيره أما موسوعة في علم كلاه أيضا لما ينكرتها بمجرد أن أدو قرشيسة أن أدخرها محي تبن بيج أما 8 دقيقة دود أن أدو حخرها مالنتي هدي أي وحبر شدو عين كان نقوم كاري لهاي ما كانوا لأنا وقتي كان دي ليا إمي ساود وقتي ياد خسارة يسادو مالينسا إمي ساسي وحبات بران كاري لهاي يعني علماء المسلمين تهري وحلا يقاني وحي هندد موسيعيين موسوعة يعني ضد انسايكلوبيديا قف وحي لا سو قادبا كجوابي كره هداي علوم دينيت هي بكل فنونها هي هداي تهي علومتي عصرغودا جرتي بكل فنونها يا اما استرونومي هالنقطة اما جغرافي هالنقطة اما تاريخ هالنقطة اما طب هالنقطة اما فلسفة هالنقطة اما رياضات هالنقطة حساب هالنقطة waxay doontaa noqoto عالمك فقيه مساجدك فردية وحا انجري موسوعة متنقلة مكتبة قوريسة وكل الفنون كلي لقيه لي كرو سبب كلانا ما يجرين ضدك كما عقل بدنين بني آدم كبحسن ما يهين لكن وحي هايان ضد وقتك كفايدية وحي هايان ضد وقتك هذا كبحيي إنه وحبران كران ما أنت وحي دادان أفريج ضدك عادي قاهي بي دادان وغيران 3 ساعات بو تي في داودا بي دادان أفريقيا عادي marka la isku dardaro 3 saacadood waqti ku dhadhow buu TV daawada haddaad 3 saacadood wax akhri lahayd maalin kasta maxaa soo bixi lahaa yani halka TV-guna dad buu ku bedeli lahayd ay fan ku doonaya ha noqdo waxa soo bixi kari lahaa yani في خلال 10 سنوات ama في خلال 15 سنة waxa dunida lagu hayo fan iyo waxa jaahil ka noqon lahayd ma jirin waxa ugu badan waad baran kari lahayd لكن مشكلة تاجني وحويان وحن ضدك كوب بحنين كو وقت قال لك فايدين لبا وحن لحددين هدف قراءة ضدك برد وحبا آخريان لكن وحي آخريان وحن فايدة بدل لحين حلا يابا كل يوم لبا مجلة مسدح جريدة ضد آخريه من سدح فرشان لح بيتشن وكآخريه maalin kasta waxa laga yaabaa waxaan macna badan soo kordhinaynin inuu akhriyo haddii uu hadaf ama qiraa'ada uu akhriyo inaanay hadaf lahayn maalin baa wixii gacantiisa soo galo inuu iska akhriyo marka maalin mashriq buu jeedaa maalin maghrib buu jeedaa hatta fi ulum diin طلاب العلم gan dambe maalin ba kitaab buu iska soo qaadaa oo iska akhriya idan hadduu hadaf kulmo marka hore oo qofku maxaad wax u akhriyaysaa haddaad garan weydo waa dhibaato qiraa'adku waa kala nooc qiraa'ada mid waa qiraa'a tasliya waqtiga uu qofku caajiso mid uu tasliya ahaan isaga akhriyo مثلا kutub waaweyn oo culamo qortay ibn al-Jawzi مثلا markuu ka warramayo al-hamqa wal-mughafalin ama al-adkiya ama waa kitaabo dadka inta waalanaya inta nacasiinta abuu kitaab ka qoray inta fariidada inta aqli badan buu kitaab ka qoray walil fuqaha qofku waqtiga uu daalo inuu iska taalacdo kaasoo kale waa la tasliya qiimo badan ma leh laakiin imsaad akhrida qiraa'atu tafahum wa tadabbur inaad wax kororsato imsaad si akhrida qiraa'a iktishaaf kutubta bal inaad dooran karto wax cusub inaad ogaato wuxuu yahay haddii hadafku uu xadidmi waayo qiraa'adu qiimo yeelan mayso inuu hadafku xadidan yahay aad wax baranayso sabirna uu jiro waayo sabir baa noloshuba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamaya wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun yani sabir baa lagu gaadhaa buuna qur-aanku sheegayaa imaamada ama meelaha koreeya waxay yidhaahdaan edison waa thomas edison odaygii nalkan baxaya ee koowaad tijaabiyey maraykanka ahaa edison nin iskuulka laga eriyey ama iskuulka ay u arkeen inuu handicap iyo aanu maskaxdiisa ku fillayn ayuu ahaa laakiin hooyadii la dadaashay
taariikhda maraykankana waa ninka bateenka ugu tiro badan le ilaa hadda. waxaan filayaa 1,100 iyo dheeraad buu leeyahay, mise 1,090 meelaha. tiro kun ka badan oo ikhtirac invention buu keligii leeyahay oo registerida. imika unbaa malaa kuwa indha yar Australia u dhashay iyo meelaha iska badiyeen 3,000 qaar la hada jira. Edison baa waxay ku yidhaahdeen, Edison muxaawaladii uu nalkan ku samaynayey 1,000 muxaawaluu sameeyey. waxay yidhaahdaan 1,000 kadib buu guulaystay. laabkiisii yaraayay wixiisii markuu isu geeyey waa tijaabiyey, waa shaqayn weyday, waa ku celiyey, waa shaqayn weyday, waddo kale ku celiyey, waa shaqayn weyday. yacni ninkaa waxaad qiyaastaa inta uu sabrayey inuu 1,000 jeer wax tijaabiyo, isla shay qura inuu soo saaro, inuu 1,000 jeer tijaabo uu ka qaado. aakhirkii inuu soo saaray nalkan dunidu ay wada ifsanayso, oo wakhti ay dunidu u baahnayd oo xadaaraduna kordhay, subagii la shidanayayna dunida ku fillaan waayey, shidaalkan daymka la wadaana aanu jirin bay ahayd. bensiinkan iyo waxaanina ma jirin. xaydhii riyuhuna dadka way ku fillaan weyday, shamac yar laga samaysanayey. markaas buu nalka kan soo helay inuu nal shidi karo. Edison bay su-aala weydiiyeen, cabqarinimadu imisay tahay, yacni wax gift oo lagu siiyey, imisayse dadaal tahay. markaasuu wuxuu yidhi 1% baa ilhaama buu yidhi, laakiin 99ka kale waa sabir iyo dhidid buu leeyahay. yacni inaad u sabirto oo wax akhriskan ama waxaan uu qofku qabanayo inuu sameeyo. markaynu qiraa'o ka waranno, qofku marka uu bilaabayo oo iska adag tahay. maalmaha hore intuu ka fahmayaa yar, intuu akhrii karayaa yar. waa taqaaninoo caruurta marka qiraa'ada la barayo, marka hore waxbuu kiciyaa, marka hal kelmaduu hore u akhrii kari waayaa, marka dambena kelmaddu higaayadiya kelmad buu akhriyaa, marka dambena 2 3. laakiin dadka inta badani markay halkaa marayaan bay ka hadhaan. laakiin hadda waxaa techniqueska maanta dunida la isbaro waxaa ka mid ah sadarka oo dhan inaad mar qura isha ku wada akhrii karto. yacni sadarka buuggu dacal ilaa dacal mar qura inaad akhrii karto, waa technique la barto. haddaad sadarka mar qura akhrii karto, dee bejka 10ka sadara 10 goor ay ishu ku dhacda ku filan ayaad ku akhrii kartaa. waxa laga yaabaa inay hariib kula tahay, hariib maaha. waxaan idinka warrami doonaa qiraa'aadka hadda iyagu sidaa u sheegayaan, tii culammada muslimiintu inay ka dheerayn jirtaan ka warrami doonaa, iyo say wuxuu akhrii jireen muxadisiintu marka aan tilmaamo ayaan wax ka sheegi doonaa. laakiin wax waliba waa mumaarasada. qofku qiraa'adiisu markay badato, suwarka kelimaadkani madaxay degaan. ishu markay ku dhacdaba waa inay maskaxdu soo rogi kartaa sawirka kan. laakiin haddii aanay qiraa'adaadu badnayn, higaayadun bay noqonaysaa inaad waxaan higaayadiso markaad akhrinayso, waayo suuraddan madaxa kuu deganayn. haddayse qofka qiraa'adiisu badato, suuraddan erayada tani ama macnaha kan uu xambaarsanyay madaxuu degaya. hadduu madaxa degana, ishu markay aragtaba waxay maskaxda u sheegaysaa connectionkaasi inuu jiray, dabeetana si fudud buu qofku u fahmi karaa. wuxuu u baahan yahay qiraa'adu si ay macno u samayso in la taqyiidiyo fawaa'ida. mashaakilka ugu badan ee dadku wax la baran waayeen waxaa ka mid ah, waxaa laga yaabaa sheekh bashiir maalin kasta inuu kitaab halkan ku akhriyo. ardada inta dhegaysataa masaajidka fadhida, dadku 2 qaybood bay u qaybsan yihiin. qaybi meelaha dambe iskaga tiirsadaan, dhegtay ka dhegaystaan. qaybina kitaabkay soo qaataan, ishay ka eegaan. labada midna ardaynimo maaha. yani ardayga rasmiga ahi ama waxbarashadu waxay yidhaahdaan, waxaad hadda akhrido bay yidhaahdaan, saacad kadib 50% baad ilaabaysa. 24 saac 48 saacadood kadibna 80% baad ilaabaysaa bay yidhahdaan. wakhti yar kadibna way wada guuraysaa. idan cilmiga dhagoodka aad soo fadhiisatay ee iminka dhegaysatay, haddii hadhow aroorta wax lagaa weydiiyo waxba ka garan maysid. laakiin haddaad wax qortay, fawaa'idda bay yidhahdaan, cilmiga waxa qura ee reebaa bay yidhahdaan waa taqyiid, waa in la qoro. qofku shayga uu qoro maskaxdiisa raad bay ku yeelataa. buug dhan oo aad akhriday, waa kuwan turuqulqiraa'a ardada marka la baraya waxay baraan, halka buug markaad akhrinayso 2 mid inuu sameeyo nidaam albataaqaat, kaadhan inuu samaysto wixii faa'iidaa uu ku qorto.
ama buugga jaldigiisa markuu halkan calaamadiyo buugga jaldigiisa inuu ku qoro mas'ale kasta meeshii buugga uu ka helayay waxay taasi fudaydinaysaa marka uu jaldiga furaba inuu garan karo masaa'ilku buuggan uga baahan yahay oo dhan waxay yihiin ama waxay fudaydinaysaa aqoontu maskaxdu way ku fiirsan tahay laakiin keywordska hadday maskaxdu dib u hesho wixii oo dhan way xasuusan karaysaa maalan waxbaad aragtay waad ilowday waad xasuusan kari weyday waan ku ag marmariyey war maalintii caynka warninkii hebel miyaad garanay hebelkaasi waa kaad xasuusan kari weyday warninkii caynka waa ka hebel maalintii aynu la soconay halka aynaga hor yimid faylkii baa markaa furmay baad leedahay hawa jaaco waan gartay waxay dhahdaan maskaxdu keywords baa jira haddii ay dib loo shido wixii oo dhan ay dib u soo noqon karaan ama dib loogu soo celin karo walidaalik waxay dhahaan qiraa'adu qiimo ma yeelato haddaan qoraal la soconin qiraa'adu waxaa qiimaha u sameeya waxa weeyaan qofku inuu wax qorayo sidaa awgeed ba ardada waxaa loo tilmaamaa ardaygu kalaaska inaanu iska fadhiisana inuu wax ka qoro wax ka reebo cilmigu sidiisabana haddaad qalin iyo buug sidatana qof wax baranayaatay haddaanad sidaninna qof wax baranaya ma tihid macluumaad iska tiro badan aroortana la ilaabaya bay noqonaysaa walidaalik systemkan dambe imika dadku wax u dhigtaan masaajidka kitaabunbaa ka socda bashiir wax bedelana la heli maayo sheekh bashiir waxa laga yaabaa 10 sano 20 sanadood buu akhrinayay haddana inaan ardayba ka soo bixin ama qof kale wax akhrinaya aanu ka soo bixin waayo 20 sanadood cilmi dhagooda mar haddii dadku iska dhegaysanayo baxayay waxaa adkaanaysa cijraabta waxaa la akhrinaya bay yidhaahdaan waxa roon inuu qofku wuxuu akhriyey xasrin karo ama si koobi karo meelaha ishkaalku uu ku jiro oo qiraa'adaadu waa inaad yeelataa ama murshid ama meel wax laga baadho dee imika sheekh google baa idinku filan google.com haddaad wax kasta ku qorto wuu ka jawaabi karaya ishkaal kasta ku haya haddaad ku qorto fi ayi fanninkan waad soo helaysaa jawaabtoo degdeg oo fudud laakiin sideedaba waxaa la yidhahdaa cilmigu marka koowaad wuxuu ku jiraa bay dhahaan fii butuuni اlkutub aqoontu kutubta gudahooday ku jirtaa laakiin furayaashu waxay ku jiraan baa la yidhahdaa biaydi اlmucalimiin aw biaydi اlculamaa cilmigu buwaagtu ku qoran yahay laakiin qofku wuxuu u baahan yahay inuu furo helo furuhu waa fanni kastoo aad baranayso musطalaxaadkiisa hore terminolojigiisa qawaaciddiisa asalka inahaasi haddaad si fiican marka hore u fahamto waad kori kartaa markaa haddiise aad inaha hore u fahmi kari weydo waxaa kugu adkaanaysa inaad hore u korto lidaalika ayuha اlikhwa waxyaabaha dadka qiraa'ada ku adkeeya waxaa ka mid ah iyagoo aan tadaruj samaynin ama aan korin ama meel aan loogu talagelin inuu ka bilaabo waxyaabaha si fudaydiya waxaa ka mida bay idhaahdaan inuu qofku ku celceliyo walidaalik baa adiibkii masriga caqaad la odhan jiray baa waxay ka hayaan wuxuu idhaahdaa 3 kitaaboo fiican inaad akhrido waxaa ka roon buu yidhaahdaa kitaab fiican inaad 3 jeer akhrido yani hal kitaab inaad 3 kitaaboo fiican akhrido waxaa ka roon buu leeyahay hal kitaab inaad saga qura 3 jeer ku celiso yani kulama qiraa'adaadu tikraarkeedu uu bato dadku iminka masaladaasi aad bay ugu yartay kitaabku beri dhegaystay ama beri akhriyey wuxuu ku biiraa shalafka lama soo qaadka ah saa daraaddeed waxaa laga yaabaa markaad maktabadda eegto kutubta taalloo dhan inaad wax ka dhegdhegaysatay laakiin midna inaad wax ka garanaynin waayo inuu wax sugmaa waxay ku xidhan tahay bay dhahaa kahratu tikraar inta lagu celceliyo ardaygu kalaaska fadhiya cilmiga soo dhegaystay daanu hadhow ku celcelin inta goorow ku celceliyay unbuu sugnaanshihiisu ku xidhan yahay markaan eegno culammadii hore siday u dadaali jireen maalan waxyaabaha keenaya inuu qofku aqoonta si fiican u barto waxaa ka mid a inuu biographiga akhriyo siiba nawaabiqdii cilmiga siiba dadkii culammadii muslimiinta ahaa مثلا هذا تصالي على الدسية الخطيب البغدادي أن عالمة وفنون بدن عالم كوها فن الحديثنا الحافظ في عصرها isagoo بغداد jooga ayaa waxa loo sheegay بغداد inuu soo galay sheekh la yiraahdo Ismaaciil ibn Ahmed ad-Darir
ismaaciil ibnu axmed adariir waa kitaabka bukhaari la yidhahda ragga wariyey. kashmiheni ayuu raggii ka wariyey ka mid yahay. markii loo sheegay ayuu wuxuu soo kaxeeyey ardadiisii ama culamo kale ay wada socdeen bayse soo raaceen. wadaadkani waa safar, nisaabuur buu ka yimi, makuu ku socdaa. safarkani wuxuu joogayaa habeen ama 2 habeen ama 3 habeen magaalada, waana safar socota. waxa ay rabaan sheekha socotada ah in laga reebo kitaabka bukhaari iyo dhammaantii. bukhaari maca mukararaadkiisa marka lagu daro 7,000 oo xadiis buu ka badan yahay. 7,000 oo xadiis baa waxaa la rabaa in laga reebo qof socoto ah oo safar ku jira. habeenkii koowaad bay u yimaadeen maqribka ilaa salaadii subax ayay ku akhriyeen. yani salaadii maqrib markii laga baxay bay akhriska bilaabeen. alkhatiib albaqdaadi baa akhrinaya, sheekhuna kitaabkiisu haystaa wuu u saxaya, ardada kalena kutubtooday haysataa way saxanaysaa. wixii uu sheekhu markaa tasxiixiyo waa la saxanaya, wixii ishkaal uu ku jiro waa la weydiinaya, waana la dareerinaya, la wadaa. salaaddii maqrib buu bilaabay ilaa salaaddii subax baa la fadhiyey, waa la kala tegey. habeen labaadkii baa laysu yimi, salaaddii maqrib baa la bilaabay ilaa salaaddii subaxee dambaa la fadhiyey. maalin saddexaaddii goor barqa'a baa la yimi, barqadii baa la bilaabay ilaa iyo salaaddii maqrib baa la waday. salaaddii maqrib kadib baa la bilaabay ilaa iyo salaaddii subax baa la waday, waxaana la dhameeyey kitaabkii bukhaariga ahaa. waa 3 jalsadood ayaa waxa lagu akhriyey mawsuucada imaam albukhaari warinaya 7,000 xadiid ka badan. waxaa lagu akhriyey 3 jalsadood. waxay tilmaamaysaa yani surcat alqiraa'a way sheegaysaa, qiraa'adoodu say u degdeg badnay. waxay kaloo sheegaysaa siday u danaynayeen cilmigu uu qiimaha ugu fadhiya nin socota ah in kitaabka bukhaari laga reebo lagu talagalay. isla imaam khatiib albaqdaadi ayaa maka tegey. wuxuu la kulmay gabadh lo odhan jiray kariima bintu axmed almarwasiya oo iyana ka mid ah sheekhii hore ardadii ay ka wada qaateen alkushmayhani. kushmayhani waa raawiyat albukhaari ninkii wax ka wariyey. alfiribri baa ah raawiyada bukhaari wax ka wariya. kushmayhani rawaadiisu ka mid yahay. kushmayhanigaasaa dariirka iyo kariimiba ka wada warinaya. kariime markuu u tegeyna, kariimi waa islaan gabowday oo 100 iyo dheeraad sano jirtay oo aan guursanin, caalimad ahayd. kariima 5 jalsadood buu bukhaari ku dul akhriyey. khatiib albaqdaadi 5 jalso 5 fadhi ayuu wuxuu kaga qaatay inuu ku dul akhriyo kitaabka bukhaari oo dhan. alimaam ibn alxajar alcasqalaani ayaa waxaa la weydiiyey sidaa uu sameeyey khatiib albaqdaadi oo kale adigu marna qiraa'a ma samaysay? wuxuu yidhi maya, laakiin aniga qiraa'adaydii bukhaari aan sheekha ka qaatay anigu 10 majlis baan kaga qaatou leeyahay, 10 fadhiyo qura. laakiin haddii la isku wada dari lahaa buu yihi 10ka fadhi ay xidhiidh noqon lahaayeen sidaa uu khatiib albaqdaadiba tiisu xidhiidhka u ahayd, tiradu way ka yaraan lahayd buu leeyahay. intuu ku qaatay in ka yar ayay noqon lahayd. markaasuu hadalka sii wada wuxuu hi walaakiin ayna athuraya min athara. laxuhu xidigaa la yidhahdaa xaggay ka joogaan ciidda. waayo khatiib albaqdaadi buu yidhi qiraayad akhriskiisu fii gaayati sixa waljawda buu ahaa buu yihi. waa qiraa'o aada u saxiixa oo qurux badan bay ahayd buu leeyahy, oo loo faa'iideynayana ardayda dhinacyadiisa joogta oo uu maqashiinayay majliska dadka joogo dhami si ay wax u saxdaan. ibnu xajar saxiixu muslimka oo isna intaan leeg axaadiis ku dhodhowa 5 majlis ayuu 2 maalmood iyo badh ku qaatay. safar buu galay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani, wuxuu gaadhay dimishqa, magaalada dimishq. maktabad buu tegey, waanu soo noqonayay. dabeetana wuxuu is yidhi maktabadda tan intaa wada qori kari maysida akhriyo ka faa'iidee. 2 bilood iyo bil uludkeed 1/3 yacni waa tiro
ka yar 80 maalmood ayuu wuxuu ku akhriyey 100 volume 100 mujallad ayuu wuxuu ku akhriyay 2 bilood iyo maxay waxaa laga yaabaa inaad imika istidhaahdaan xaafid ibnu xajar marka laga warramo iyo wuxuu dhigay iyo wuxuu kitaab ka tegay inaad tidhahdo qofkani mucjiso ahaa mucjiso kale maahayn qof bini aadam oo caadiyu ahaa laakiin waktuu geliyey wuxuu ogolaa inuu wax akhriyo wax akhriskii baa nimanka kan culamo ka dhigay alxaafid almizi oo xufaadii culimadii waaweyneed ka mid ah waa ibnu kathiir iyo sheekhoodii xaafid almizi waxaa la yidhaahdaa mucjam alkabiir liلطabrani mucjam alkabiir liلطabrani waa kitaab xadiid ah 25 majalladood isaga 60 majlis buu ku akhriyay baa la yidhahaa 25 majalladood kitaab ka samaysan ayuu 60 fadhi oo lasoo fadhiistay buu ku dhameeyey waxay tilmaamaan alxaafid alciraaqi imaam alciraaqi musnadka imaamu axmed iminka isagoo 55 majalladood meelahaas iyo 50 majallo ka badan ma filayaabaa la daabacay musnadka imaamu axmed 30 fadhi buu ku dhameeyey oo ku akhriyey waxaad meeshan ka arkaysaa qiraa'adoodu kow surcada ay lahayd sida qiraa'adooda u dheeraynaysay ay sariica u ahayd waxaad kaloo ka arkaysaa siday hamiga u hayeen inay wax bartaan ay ugu dadaalayaan inay wax akhriyaan waxaad kaloo ka arkaysaa kutubta iyo waxa kane siday u yaraayeen ee qof socota in kitaab dhan laga reebo loogu dadaalayay mararka qaarkood inay kitaab xifdiyaan ama xejiyaan ibnu caطaya waxaa laga sheegaa bukhaari inuu 700 jeer akhriyay waxaa laga yaaba haddaynu isweydiino miyuu nagu jiraa mid bukhaari marna dhameeyey halkaa maktabaddu iska saaran yihin ibnu caطiyana wuxuu tilmaamaya ibnu caطiya inuu 700 mara inuu akhriyey bale culamada barh bay soo naqliyaan maala almushawq lilqira'a kitaabka aninka qoray oo waxaan ka soo noqolay nuquushan qaar aan ka soo qaadanayno wuxuu ka warramaya qaar bukhaari 150 jeer akhriyey qaar 280 jeer simaacan waa qiraa'an sameeyey qaar 50 jeer akhriyey kitaaba 40 jeer la akhriyey imaam السلفي ayaa wuxuu leeyahy waxaan maqlay ibnu طaahir oo leh katabtu صaxiixayna wa sunan abi daawuuda 7 maraaت biاlأjرة wa sunan ibnu maaja 10 maraaت biالray صaxiixaynka bukhaari iyo muslim iyo sunanka abu daawuud 7 jeer baan qoray buu leeyahy waa lacag ku qaatay yani dee maطbacada ma jirin wax daabaca kitaabka markuu sheekhu qoro ee loo baahdo kitaab 10 majalladood 20 majalladooduu sheekh qoraya qof kasta oo raba kitaabkan inuu helaa ama nusaakhda niman ka shaqaysta qalinkooda wax qoraad u geynaysa ama adaa qoranaya wuxuu sheekha kani leeyahay saxiixaynka 7 jeer baan qoray sunan abi daawud 7 jeer baan qoray ibnu maajana 10 jeer baan qoray waa intuu rayi joogo qura qofka kitaab 7 goor naqliyey intuu ka fahmaad u malaynaysa 7 jeer dhammaantii min alifihi ilaa yaa'ihi gacantiisa ku qoray culamadu waxay tilmaamaan qoraalkooda iyo akhriskooda marka la tilmaamayo ibn aljawsi waxay dhahaan wakhtigiisa waxba muu dayici jirin fi lyowm 4 buug buu maalintii qori jiray bay yidhaahdaan sanadkiina gacantiisa wuxuu ku qoro ilaa 50 volume ilaa 60 volume buu sanad kasta qori jiray nin ka mida dhashiisii ayaa wuxuu yidhi waxaan maqlay isagoo mimbarka saaran cimrigiisa wakhtiyadii ugu dambaysay oo leh labadayda faroode kuwaasiya waxaan ku qoray 2000 mujallad isagoo leh labadaydaa farood waxaan ku qoray 2000 oo kitaab buu leeyahy 2000 oo volume ayaan labadayda farood ku qoray buu tilmaamaya moxamed ibnu mukaram almacruuf ibn اlmanduur ninkan kitaabka luqada le ibnu manduur la yidhaahdo waxa ay tilmaamaan mukhtasaraadku ka tegey kitaabadu soo koobay waxaa ka mid ah taarikh ibn casaakir taarikh ibn casaakir waa 80 volume 80 volume buu intuu akhriyo ikhtisaariyey
waxaa ka mid a taariikhu baqdaad waxaan u malaynaya isna 50 volyo meelahaasi inuu gaadhayo waxaa ka mid ah mufradaat ibn albayطaa waxaa ka mid a alxayawaan kitaabkan la yidhaha jaaxid qora tiro badan kitaabo badan waxaa idinku filan dadkani say qoraalkan iyo wax akhriskan iyo cilmiga kan daacad uga ahaayeen abu sacd الsamcaani ayaa kitaabkiisa la yidhaha الtaxbiir fi اlmucjam اlkabiir wuxuu ka waramayaa sheekh la odhan jiray alxusein ibnu axmed اlbayhaqi alxusein ibnu axmed اlbayhaqi maaha bayhaqigan imaamka ah isaga waxaa la yidhaha axmed ibn اlxusein arday bay soo ahaayeen الحusein بن أحmed الbayhaqi ayaa wuxuu yahay ardaygii imaam الbayhaqi imaam أحmed بن الxusein الbayhaqi ayuu ardaygiisi ahaan jiray waxaa la yidhahdaa sheekha kan xanuun baa ku dhacay dabeetana 10 faroodba waa la jaray intanba waa la jaray gumudkaa uu soo hadhay wuxuu leeyahy waxaan u imi gumudkaasi gumudadaa hoose isagoo qalin ku haysta oo maalin kasta 5 طاaqaat min alkaaqid qora buu leeyahy kaaqidki waa waraaq ballaadhana wax lagu qori jiray 5 ka mida buu maalin kasta wax qori jiray buu yidhi waa nin gacmu go-an yihiin dhulkii wax lagu qori jiro o dhan oo intuu qalinka halkan ku qabto adinkuu saari jiray baa la yidhi dabeetana saas buu u qori jiray yacni halka ay ka taagnaayeen wax qorta iyo wax akhriska iyo dhegaysiga bale waxa kuugu filan ibnu اlqayim baa wuxuu ka warinayaa cabdiraxmaan ibnu taymiya cabdiraxmaan waa axmed ibnu taymiya sheekhan ibnu taymiya la yidhaha walaalkii weeyaan imaam ibnu اlqayim baa wuxuu leeyahay sheekh ibnu taymiya walaalkii oo cabdiraxmaana baa wuxuu noo sheegay uu ka warinayaa abihi cabdilxaliima oo uu ka warinayaa odaygii abulbarakaad ah abulbarakaad waa awowgii ibnu taymiya awowgii waa ninka kitaabkan muntaqaha leh naylulawtaarkan uu sharxayo شharxa naylulawtaarka ee imaam shawkani uu leeyay waa kitaabka matniga la sharxayo odaygii lahaa sheekhii lahaa wuxuu leeyahy markuu toiletka galo xamaamka markuu galo intuu ii yeedhaa buu kitaab ii dhiibi jiray wuxuu odhan jiray intaan xamaamka ku jiro akhri kitaabkaas iyo kor u akhri aan ku maqle yacni waktiga uu ku dadaalaya inuu wax akhriyaa waa waktigee yani waktigii kaloo dhami markuu ka buuxsamay waxa uu tijaabinayaa inta uu xamaamka ku jira ama weysaysanaya ama uu xamaamka gudihiisa intuu ku jiro inaanay intaasina ka lumin uu 2 shaqo wada qabsado oo ah inuu kitaabkaana dhegaysto shaqadii uu xamaamka uga baahnaana uu qabto idan haddaad maqasho culammadii hore mawsuucay ahaayeen iyo kan bay ahaayeen dee warragaa waktigooda kaga dadaalay intuu xamaamka ku jiraa inaanay ka lumin isagoo xamaamka ku jira inuu dhegaysan karo kitaab cilmiya intuu inankiisa u dhiibo inuu akhriyo oo u dhegaysto waxaa laga yaabaa yani markay kharaa'ibtooda ka warramayaan waxay tilmaamaan maala alcalaamaة الnaxwi axmed ibnu yaxya almacruuf biاlimaam الthaclabi la odhan jiray naaxiga ahaa ibn اlkhalakan alkhalakan min kitaabihi اlwafiyaat marka uu tilmaamayo sababtii uu dhintay wuxuu yihi salaad maalin jimce ayuu bacd alcasr masaajidka ka soo baxay oo aanuu yaro dhagacuslaa leeyo hore waxumuu maqli jirin dabeetana wuxuu diidanaa wakhtigu inuu ka khasaaro kitaab buu akhrinayay buu yihi isagoo kitaab akhrinaya ayaa faras riixay buu leeyo god ku riday dabeetana halkan madaxuu wax ka noqday maalin labaadiina wuu u dhintay buu leeyahy markaa wuxuu ku qorayaa culammadii qiraa'adu dishay inuu ka mid yihi waxay soo naqliyaan qolo intay maktabad galay jaaxid baabay ku sheegaan habeenkii markuu kutubta wuxuu lacag haysto wax ku iibsaday wax walba gurto kuwa waraaqinta kutubta qora ayuu habeenkii ka kiraysan jiray habeenkii markay seexanayaan aanay wax qoraynin inuu isagu meesha dhex joogo wuxuu u dhex joogayaa intaa habeenkii uu ka maqan yahay inuu kutubtan sii akhriyo jaaxid waxay idhahdaan markii dambe maktabadiisaa ku duntay oo dishay kutubtiisu u dhintay bay idhahdaanba markaad aragto waxay ka warramayaan ama ibn اlacraabi ayaa waxa la yidhi nimay saaxiib ahaayeen axmed ibnu maxamed ibnu shujaac ayaa u soo diray wiil oo yidhi waan kuu baahanayay kaalay markaasu wuxuu ku yidhi qolo reer miyiya baan acraabaan la yaro sheekaysanayaaye markaan dhammeeyo ayaan kuu iman doonaa dabeetana inankii uu soo diraa ku noqdo wuxuu yidhi
wadaadkii cidina lama fadhinin anugu markaan u galay laakiin wuxuu yidhi qolaa caraaba ila joogto oo markaan dhammeeyo arrinkoodan kuu imanaya markii uu tegey buu wuxuu yidhi war cidda kuu timi inankii wuxuu igu yidhi cidiba lama joogina maxay ahayd dabeetana gabaygan buu tiriyey uu leeyay lana junasaa'u ma namallu xadiiثahum alibaa'un ma'muunuuna ghiiban wamashhada yufiidunana min cilmihim cilma maa madaa وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أموات فلا أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا كما يقول تريولي هاي ولا ترتبوا إلى مركز تنو ورنطه ووركو ذا أنن كدالين وعلمك نوشيغا هي علمك يجدتك كهر رييبا caqli iyo adab iyo ra'yi fiicanna noo kordhiya oo aan dhibna nagu haynin oo wax fitnaan aanan uga baqaynin carab wax dura iyo gacan wax dhibto toona aan lahayn kuwaasaanu la fadhinay haddaad idinku tidhaahdaan meyd bay ahaayeenna run baa sheegteen buu yidhi oo been maydan sheegin haddaad tidhahdaan waa nool yihiinna war laydinku diidaya yacni kutubaan haystay buu leeya waxbaan akhrinayay ibnulmubaarak baa waxay idhaahdeen cabdillahi ibn ulmubaarak imaamkii la odhan jirayba waxaa la yidhaha had iyo goor cidlaad joogtaaye maxaa cidlada ku dhigma dadka u timaadadoo sheekaysid aad buu uga xanaaqay baa la yidhaha markaasu wuxuu yidhi maanaa keli jooga ma ninkayga nebigii iyo saxaabadii la jooga bay leedin keli buu joogaa yacni nebi maxamed warkiisii baan akhrinayaa buu leeyahy nebi maxamed baan dhegaysanaya calayhi salaatu wasalaam oo hadalkiisii aan akhrinaya iyo saxaabadiisii baan dhegaysanaya markaasaa ay leedin buu leeyahy cidlaad joogtaaye maad noo timaadad aan kuu sheekaynay أخوتي في العقيدة قراءة دي آخر سكود الجاحد باوحو لي وحان مغلي الحسن اللؤلؤ نكي اللورنشري هو أبي حنيفة صاحبكي أولي بو يري أفرطن صنادوت ما نسيحانين مالين يهبين تونا إلا يا كتابكو سقو لابتي دا صارن موياني وحلقة يابين التلاهدان dadka hore waqtigooda ay iska haysteen oo wax mashquuliyo badan baan jirin aan culimadii mucaasiriinta ahayd wax ka tilmaamno الإمام جمال الدين القاسمي وتفسير كان محاسن التأويل كلا يلاحظه شيخ قري تفسير بالله لنا مجلدات بدنا شيخ رد من شق أبوها كتاب كيسال الفضل المبين وحو قرية وقد اتفق لي بحمده تعالى إلهي مهدي وحا إيسوغنا طيوي دعدي بيوني صحيح مسلمك بتمامه رواية أفرطا مع الموت بانكو أخري بيوني كتابك صحيح مسلم كان دمانتي سنن ابن ماجنة دمانتي سنة وحنكو أخري بيوني كوبيا لباطن عشو موطا إمام مالكنا سقالي طبعا عشان كو أخري بيوني كتابك من حجر الرجال كتهذيب وتهذيب كنا أنا قولي بيساق التصحيحين أيام ماله قلمك وقفي حاشينا وصمينا يعني تقريرات كرنا كسي قرينا اسنا طبعا معلومات بانكو أخري بولي فدع عنك أيها اللائم كسل واركوينا عاجزين تو عن بضني دا اسكد ايو واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل بولي وار وقتنا وحكو إلى لسان وقتنا عزيزك هنا وحبرتان هي عمل في عنات سميسو وقتك كبحي بولي يعني وحاوت المامية صحيح مسلم هي ابن ماجه هي موطأ إمام مالك هي تهذيب التهذيب مركا الله يسكو دره أفرتاس كتابه ووينو مدولي بمجلدات ككوبين هي مركا الله يسكو وضا دره وحكو آخرية أفرتن مع الموضوع مالا هي كوبيا لاترية سقالية طبعا وأفرتن كالي سيديتا مع الموضوع هي طبعا عشو التهذيبة سقاشن مع الموضوع صدح بلاد بكل ماهي انت سو كتابي انت سو مجلدات وتلمامية بل هذا المعاصرين كان سودا بيس بسيطة الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه وذاتك أصل يسوى مصر من طنطا لكن غير سوريوها برقي دمار سعودي قدقنا مذكرات كيسوي حقرية ولي بالله بقورك على دنبيساء تلمامه فأنا اليوم وأنا بالأمس كنت في الصغر أمضي وحلي أنا ما أنت هي الشلي
iyo markaan yaraaba waxaan ahaa buu leeyahay maalintii inta badan nin guriga jooga oo akhriya maalmaha qaarkood ilaa 300 oo bage baan akhriyi jiray buu leeyahay haddii aan sidhaahdo beenta iska ilaali buu yidhi anoo huba mucadalkaasi inuu ka yaryahay intii aan akhriyi jiray isku celcelin maalin kasta 100 bage baan akhrinayay buu leeyahay wakhtigu markaa qoraya waxa weeyaan laga bilaabo buu yidhi 1340kii ilaa 1402 62 sannadood buu wuxuu leeyahay maalin kasta waxaan akhrinayay 100 bage kadib uu sii noolaa doctor maxamed muuse shariif isaguna wuxuu kasoo naqlinayaa kiisa dambe ah 70 sannadood inuu sidaa u akhrinayay 70 sano oo sanadkiiba 354 hijriya uu yahay oo maalintii 100 bage oo akhrinaya ku dhufo waa 2 milyan iyo badh bage yani waa nin caalima muslim hadda noolaa oo le waxaan akhriyey in ka badan inuu akhriyay 2 milyan iyo badh 2.5 milyan bage uu akhriyey waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo de haddaa gurigunbu iska fadhiyo wuxuunbu akhriyi jiray shaqadiisa kalena u fiirso 3 majlis 3 guddi buu ayuu ra-iisulmajlis u ahaa kuliyadda jaamacaddana waxbuu ka dhigayay muxaadaraad buu ku lahaa secondary schoolka qaybta ragga iyo qaybka dumarkabana waxbuu ka dhigi jiray yani culamada tawaaducooda u firsay inaga waxa laga yaaba ninka professor noqday jaamacadda taga meel ka hooseysa inaanu aqbalin wax ka sheegsheego waa professor ile ninkani jaamacadda macallin buu ka yihi haddana secondary school hablaayo secondary school inama ah labadaba waxbuu ka dhigaa khudbadda jimcana wuu akhriyaa muxaadaraadkana wuu jeediyaa idaacaddana duruus joogtaa buu ku leeyahay jaraa'idka soo baxana waa kaatib maalin kasta maqaal qora intaasoo shaqo isagoo haya oo maalin kasta kaatib journalist oo maqaal qoraya ah idaacadda maalin kasta barnaamij kuloo soo daynaya oo barnaamij idaaciya leh muxaadaraadka masaajidda iyo dhulka laga akhrinaya jimcaha khudbad leh 2 iskuul iyo jaamacad 3daaba wax ka dhiga 3 urur gudoomiye ka ah ama 3 gole gudoomiye u ah ayuu haddana mucadalkiisa qiraa'o intan u ahaa 2 milyan iyo badh u akhrinayay taa macnaheedu waxa weeyaan culammadii hore haddaad maqasho waxbay barteen ama xifdigooda fiicna ama caynkana dad wax akhriya waxna qora bay ahaayeen dad wakhtigooda qiimeeyey bay ahaayeen alfaribri raawiga imaam albukhaari kitaabkiisa ka wariya wuxuu leeyahay imaam albukhaari baan gurigiisa ugu tegey anigoo la jooga buu yidhi buu habeen qura 18 jeer buu kaco faynuuska shito wax qoray buu yidhi yani bukhaari kitaabka bukhaari un la yidhaahdo dabeetana dadku ay u qaataan qof iska mucjiso ah oo cerka laga soo tuuray oo isagoo aan dadka u ekayna bukhaari qof bani aadam oo caadi ahaa laakiin maca xifdihi isagoo aaya fi lxifdi ahaa ayuu haddana wuxuu ku bixinayey intuu seexdo ayaa wax ku soo dhacaan ama waxbuu xasuustaa wuu soo kacaa wuu qoraa waxbuu baxtiyaa waxbuu qoraa habeen quro aan la jooga buu leeyahy ayuu 18 jeer nalka dib u shitay culamadii muslimiinta hore iyo dadkii muslimiinta hore markaa fii casrihim cusuurtan aynu ka waramayno yurub waa cusuuri dulaamkeedii waa markii ay medieval periodka ku jirtay maktabadooda ugu weyn 170 kitaab baa yaalay adiiradii ugu caansanayd in wax la akhriyo daayo wax la akhriyaaba ma olin xoogaagaa yaree buugagto injiil ka warramayaa yaalay xataa falsafadan griiga imka ku faanaan may soo gaadhin waayo falsafada griigu can ariiq alandalus bay marka dambe uga timi kadib bay dib ugu noqdeen asalkeedii iyadoo caynkaasiya ayaa caalamulislaami maktabaadka caadiga ee yaalla waxay ahayn bilmalaayiin waxaasoo milyanina madbacad quro daabacday ma jirtee gacan bini aadan baa qortay yani marka la eego qurطaba marka la eego maxaa la idhaha qaahira marka la eego dimashq marka la eego baqdaad bale marka la eego casrigii dambe waxay noqotayba waxay madaxdu isugu faanto
oo xataa qiraa'aadkan gharaa'ibta ragga laga soo naqliya madaxda ka mid a alma'muun oo kala ka mid a andalus kuwii haystay umawiyiintii qaar ka mida yani xataa madaxtooyada caynkan wax looga akhriyi jiray caalam alislaami markuu sida tan wax u akhrinayay wuxuu ahaa dad hogaamiya fii kulli اlfunuun waxay ahaayeen mawsuucaat culamada joogtaana dad wax kasta ka jawaabi kara waxay ahaayeen dad waxay qorayaan khatiib albaqdaadi markaynu nidhaahno kitaabu intan ku akhriyey de haddana wuxuu qoray maa min fanin fii cilmi اlxadiid ilaa kutubu ka leeyahy ilaa la yidhahdo ciyaal bay dadku u yihin bal taariikhu baqdaad magaalada baqdaad taariikhdeeda qura ayaan filaya inuu 50 majallo ka qoray inuu ka waramo baqdaad iyo wixii caalim soo mariya wixii kitaab lagu qoray taariikhu baqdaad inuu ka waramo ayuu 50 majalladood 50 volume ka qoray caalam alislaami wakhtiguu horu marsanaa waxay ahayd wakhtigii qiraa'ada iyo akhrisku jirtay hadda waxaa jira waxa weeyaan labaduba waa lumeen wax qorkuna wuu lumay haba dambeeye wax akhriskiiyo waxbarashadii baa luntay waxaa laga yaabaa ragga halka jooga sacidka in 20 sano la fadhiyay 20 sano waa in khabiir lagu noqdaa bay ahayd maca daalik aqoonta waxoogaa la dhegadhegeeyey laakiin waxaa aada u liita oo aan marnaba dadka muslimiinta ee dambe ka faa'iideynin waxa weeyaan waa waktigii dariskan waxaan uga dan lahaa un inaan tilmaamo fursad baa haysataan maanta haddii cilmiga loo lugeyn jiray ama loo daali jiray ama hadalxufaad baa wuxuu tilmaamayey 2 jeer mise 3 jeer buu leeyahay ibnu xibbaan caalim alxadiid ayaan kaadideeda u cabay buu leeyahay markuu haraadee wax kale u cabo waayey ayuu leeyahay baan kaadideyda cabay a'imo kale waxay tilmaamayaan kulaylkiisay u socdeen in ay kaadi dhiig kaajeen waxaana waxay ahayd cilmi raadin la raadinayay raggan cilmigaa qoray ama akhrinayay lug bay ku ururiyeen imaam albukhaari bukhaaru ka yimi bukhaari waa samraqanda agteeda samraqanda waa duwalkan yaryar imka raashinka ka go-ay halkaasuu lug ka soo bilaabay lugtu halkaa ku yimi ayuu caalamulislaam oo dhan ku maray wixii cilmi lagu hayay baqdaad intaasoo jeer soo galay dimashq intaasoo jeer galay qaahira intaasoo jeer galay makiya madiina intaasoo jeer galay waxaasoo dhan waa la lugeynayay cilmina la raadcaynayay lug baa lagu wada maray iyadoo cilmi la raadcaynayo aan mar qura ahayn iyo 2 iyo 3 intaasoo jeer loo kala lagu qaadoo la maray nin hal xadiid ayaa intaa loo lugeyn jiray maanta se cilmigu intuu batay oo ay fanin aad doonto kitaabkiisu iska jabanyo la gadan karo culimmada hore hantidu waa ku yarayd oo wakhtiga kan ay iyagu wax qorayeen ama baadhayeen hantidu way ilaa xad qaarkood مثلا سليمان بن عبد الحميد الحموي الحنبلي والحافظ بن حجر العسقلاني الشيخيسي ayaa waxaa islaamihii ka dacwoodeen waxa la yidhi lacagtiina soo gashay oo dhan dee kutubun baad siisanaysaa kutub baad iibsataaba ayaa lagu dacayday ama lagu maagay gabay buu tirinaya uu leeyahay waqaa'ilatin anfaqta fi lkutubi maa xawat yamiinuka min maalin faqultu daciini lacalii araa fiiha kitaaban yadulunii liakhdi kitaabii aamina biyamiini gabay buu tirinaya uu leeyahay waxay yidhaahdeen wixii ku soo gala midigtaada wixii aad ku heshaba kitaab baad siisatay anna waxaan ku idhi buu yidhi daaya waxaa la arkaa waxoogaa kitaab aan ka bixiyey inuu noqdo aakhiro ka sababa in kitaabkayga midigta layga siiye axadul a'immana wuxuu ka warramay iyadoo xaaskiisu ag joogto wuxuu ka warramay nin kale oo ay saaxiib yihiin oo dhowr dumara qabay oo iyo inaanay yani duruufaadkiisu ka warramay islaantiisu halkan fadhidaa ka soo boodo waxay ku tidhi 3 inaad ila guursato waxa igaga dhib badan bay tihi kutubtaa ku ag taalla yani kitaabadaadaa ka badan bay leedahay dumarka daraahirtee la isla qabo dhibaatada iga soo gaari lahayd kitaabadaada dhibaatada iga soo gaarhisa yani mudmin bay ku ahaayeen inay wax akhriyaan ama wax qoraan laakiin taasi waxay fudaydisay
inuu cilmigu noqdo wax dhaxalo ay ka tagaan. waxaa kitaab maanta aad aragtay caalamulislaami la taabacay iyo in laba laabkeed ka badan oo aan la taabicin gacanunbaa lagu qoray. waxaa raggii gacan ku qoray waxaana waa la akhriyi jiray, bale waa la qaybsanaa, korkaa laga hayay. haddana dhibtu waxay ka taagantahay iyadoo kitaabku meel walba uu yaallo, la fudaydiyey wasaaishii wax lagu baranayay, oo laga yaabo maanta ayi kitaab aad u baahato inaad nadka ka heli karto, ama isagoo bilaasha ama isagoo wax yar lagu iibinayo, oo inaad akhrido ama member yar aad ka noqonayso ixda almaktabaat oo aad helayso wixii aad uga baahato, kitaab aad heli karayso o dhan. maanta waxaa laga yaabaa kitaab kastoo aad u baahato hadday kuwani hantidoodo dhan siisanayeen ama u lugeynayeen ama dhibtaasi ay u soo gaadhaysay, adigu seconds baa lagu helaya. waxaa kaloo la mid ah aqoonta inta la fudaydiya maanta dhammaanteed iyadoo duuban ama online ama kana baa la wada helaya. laakiin hamu naas baa daciifay oo waktigu maanta badhna wuxuu ku lumaa t v baa lagu bixiyaa, badhna maqaaxiyo hebel soo booqiya halkan mar buu ku baxaa, badhna wax bilaa macnaa buu ku baxaa. cimriga dhammaantii wuxuu ku dhammaaday markaa meel cidlah. cimrigii oo ah raasamaalka quri aad haysatay wuxuu ku dhammaaday meel aan waxba ka jirin. haddaynu rabno waxaynu rabno inaynu noqonno, waxaad noqon kartaa maanta fursadda la haysta adoo gurigaaga jooga, adoon gurigaaga meel looga bixin, ayaad caalim diineed iyo mid saynis iyo mid kaa doontaba noqon kartaa. wax walbana min alifihi ilaa yaa'ihi biayi mustawa aad joogto meel aad ka bilowdana aad ka helayso. from zero fanni ah ayaad bilaabi kartaa. funuunta qaar baa anagoo zero ka ah iska dhegaysana Harvard University lectureska ka baxo free ugu jira. haddaad dhegaysato si caadiya baad u baran karaysaa. siiba dadkiina North America jooga, waxaan isleeyahay aakhiro wax badan ilaahay uu idin weydiin doonaa, waayo wax fursad badan oo aan dadku haysanin, internet bandwidth ka ballaadhan kuwa caalam kale lagu isticmaalo, fursad aad u tiro badan oo waxbarasho ay agtiina taalla. laakiin waxaa yar dadka inta ka faa'iideeya. inta yaryari ka faa'iideyn mayso haddaanay intiina waaweyni tusaale aydan u noqonin. haddaad adigu tusaale ugu noqoto xamaalasho iyo taxi driver ama gurigoo la fadhiyo unoo caydh la qaato, haddaad adigu tusaale ku noqoto, ka yarna wuxuu le intii odayguba qaban jiray amba waan qaban karaa, maxaa ilu goynaya. laakiin haddaad adigu tusaale u noqoto, walidaalika ba culammadii muslimiinta hore qaar baa waxay qoraan kutub ay ka warramayaan kuwii waxbarashada bilaabay bacda alarbaciin. kitaab bay ka qoreen, yani rag waaweyni wax ku bilaabay. culimo aada u badanoo maanta macruuf oo la yaqaano ayaa rag waaweyni ku bilaabay. ibn alxasam waxay dhahdaan isagoo dhowr iyo 20 jir oo siyaasadda ku jiro oo nin weyn oo siyaasi ah ayaa waaxid min alqariib uu dhintay, masaajidkaa la keenay, masaajidku soo galay, dabeetana uu iska fadhiistay. meesha fadhiya wuxuu yidhi masaajidda lama fadhiistee kactu ka hortoo sunnayso. uu iska sunnaystay, 2 ragcadood buu tukaday, xabaashii baa la soo aasay, uu soo noqday, goor casar dabadayuu haddana soo galay, 2 ragcadood buu tukaday. mid kaleo meesha fadhiyaa yidhi war casarka dabadiisa waxba lama tukaday, ka fadhiiso masaajidka. ibnu xasam markii horena wuu fadhiistay, waxaa la yidhi war lama fadhiistee tuko. markii dambena wuu tukaday, waxay dhahdeen war waktiga waxba lama tukado, iska fadhiiso. dabeetana markaas wuxuu yidhi waryaa fiqiga magaalada yaqaana, waxaa la yidhaha fulaan. ibnu xasam halkaasuu ka bilaabay inuu wax barto, isagoo dhowr iyo 20 jir 26 jir meelahaasibu ahaba la yidhahdo, nin siyaasiya oo wasiir soo noqday oo yani dowladda ku jiray, ayuu wuxuu dib u bilaabay inuu ardaynimo bilaabo. culamo badan oo muslimiin ah, xataa axad alculamaa la tilmaamo azhar shariif inuu haysan jiray, sheekh alazhar alimaam alakbar noqday. 54 jir buu ku bilaabay bay yidhahdaan waxbarashada. markii dambena ilaahay baa cimrigii u dheereeyo 90 iyo waxoogaa buu gaadhay, ilaa iyo uu ka gaadhay inuu noqdo sheekh alazhar. culamada muslimiintu ciday ka dambayso ee sheekh alazharka loo qoran jiray waktigii. idan wakti aad cidlo ku bixinayso ayaad wax ka faa'iideyn kartaa. walidaalika baa culammadii hore waxaa la hayaa rag badan oo markay dhimanayeen, abi xaatim araazi inankiisa ibn abi xaatim wuxuu leeyahy isagoo sii dhimanaya ayaan weydiiyey hebel cabdilghafaar ma saxaabi buu ahaa,
markaasuu madaxa ii ruxay buu yidhi markaasaan ku celiyey buu yidhi waa uu dhimanaya odayga markaasuu buu yidhi taabicu ahaa taabici yacni qof dhimanaya uu mas'ale la weydiinayaa say cilmiga ugu dhigayeene dadka ugu furaayeen bayruni isagoo naftu kasii baxaysaan inuu soo galay markaasuu wuxuu yihi warka halkaale masaladii miiraadka ahayd dhaxalka ahayd caynkaa ku saabsanayd ii sheeg waxaa la yidhi dhaxalka iska daayo iminka way ku haysataa iska ashahaado wuxuu yihi war anoo garanaya inaan dhintaabaa dhaanta anoo jaahila inaan dhintee ii sheeg waa loo sheegay markuu ka baxee uu dhexda sii socdo ayaan baroortii dumarka dib u maqlay buu leeyay sheekhay dib baa ugu soo noqday isagoo dhintay yani waktigaas say ugu dadaaleen xataa iyagoo saaran sariirta geeriday wax baranayeen inaguna qofka oo caafimaad qaba oo miyir qaba oo waxba qabin ayaan isku dayin inuu barto waxyaabaa kasii yaab kale waxaa ka mid ah maalan waxaad arkaysaa qof aan isaga qur-aanka akhriya aqoonin salaadiisuna inay u saxantahay ku adag tahay oo ilmo yar wado qur-aanka geynaya ilmaha yar inuu qur-aan dhigtaaba waajib kuma haday waajib kuga hayde intuu ilmaha qur-aanka geeyaabuu isagu maqaaxida u fadhinaya inta loo dhigayana sheekeynaya marka loo dhameeyo ayuu imanaya markaasuu ilmaha kaxaynaya labada isagay ahayd waajiba inuu fadhiisto oo dhigto yani waxaad samayn karayso tiro badan leh ayaa maanta dayacmay طulaabulcilmiguna sida aan sheegay dambe hadday wax dhegaystaanbana waa cilmi dhagoodkay dhegaystaan iyana cid wax qorata ama wax naqlida ama wax reebta waa yartay qofku hadduu wax qorayo wax naqlinayo sheekha wax akrinaya waxaa laga yaabaa dariska markuu soo diyaarinayey 10-20 kitaab inuu soo baadhay 20 kitaab wixii uu ka soo doortay uu isyidhi faa'iiday u yihiin inuu kuu soo naqliyo uu kuu soo sheegay inaad 20kii adigu akhrida hadhow aad tidhahda masaladan dee waan fahmay markaan baadhaya hadhow baa kutubta ku noqon doonaa waxaa laga yaabaa inay kaa qaadato 4 saacadood 3 saacadood inaad soo diyaarisaa laakiin haddaad markuu sheegayo aad ka qorato waxay suurtogalaysa 3 saacadood 4 saacadood waxaad soo baadhi lahayd inaad si fudud aad u reebi karto ama aad u taqyiidin karto walidaalika ayuha alikhwa waxaa laga yaabaa dadka badhanaysa leeyiin war wadaadku dariskan maanta akhriyay de waa kuwii yaryarka loo akhriyi jiray laakiin anigu waxaan isleeyahay waa daris loo akhriyi karo qof kastoo muslima qof yar iyo qof weyniba wuu u baahan yahay inuu waxbarto oo muslimi ummadda muslimiinta ahna inta ay waxbarataa unbuu horumarkeedu ku xidhnaan doona inta ay waxbartaana waa markay waxbarashadu wax caada a inaga noqoto wax noloshaada yowmigaa ka mida inaad shaqo tagtaa noloshaada yoomiga ku jirtaa inaad wax cuntaa noloshaada yoomigaabay ku jirtaa inaad musqusha gashaa noloshaada yoomigaabay ku jirtaa qofka muslimka waa inay noloshiisa yoomigaa ku jirtaa inuu waxbartaa oo waxbarashadiisu ay kortaa oo hore u socdaa wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum عليكم السلام aqoonta horta way kala muhiimsantay umminimo aan loo dul qaadan karin baa jira waxaad arkaysaa maanta nin laga yaabo inuu jaamici yahay scholar yahay PhD sito oo aan weyse saxaynin ama salaad saxaynin oo runtii waa umminimo tii u liidatay waa literasigii ugu liitay waayo qofku janno iyo naar wuxuu ku kala dooran lahaa ama uu ku shaqaysan kari lahaa aakhiro uu ilaahay ugu dhowaan lahaa inuu illiterate ka noqdo uu garan waayo oo caado kaga dhaqmo farhungurina inuu siiyo ilaa uu doctorate ka qaadanayo oo waqti iyo lacag iyo juhud iyo caqliba uu geliya waa waxaad u leeyahay macnaheedu maaha inaan caayayo ama maagayo inuu doctorate soo qaataaba wax barto ee waxaan caayaya maagaya waxa weeyaan inuu khasaareeyo inuu baran karo wixii uu baahnaa idan umminimadu nabigu calayhi salaatu wasalaam nin baa isagoo masaajidka fadhiya soo galay waa saxaabi nebi maxamed arkayay saxaabadu say u tukanaysa arkayay dhaqankaa soo gaadhay dabeetana salaad buu tukaday
markuu dhameeyey buu nebiga u yimi uu salaamay nebigu waa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa tukanin oro tuka buu ku yidhi ninkii wuu ku noqday mar kaluu tukaday waa dhameeyey nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi maa tukanin orodoo tuko salli fa innaka lam tusalli waa ku noqday ninkii mar saddexaad buu soo tukaday waa soo noqdoo nebigu u yimi dabeetana waa salaam wuxuu nebigu mar saddexaadkii ku yidhi salli fa innaka lam tusalli waxba maa tukana oro tuko ninkana waa saxaabi nebi maxamed buu ag joogaa saxaabadii kale uu ag joogaa wuu arkayaa ficilka iyo waxa la samaynayo haddana waxbaa qaldan u baahan inuu saxdo isagu markii isku dayey dadaalayna way saxmi weyday markaasuu qirtay inuu waxbarasho u baahanyay nebigu intii hore uma juuqin wuxuu yidhahda tuko salaad ma ahayn intaa tukatay markaas wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiyo ka badan garan maayo ee ii sheeg waxay bar markaasuu nebigu wuxuu baray calayhi salaatu wasalaam si uu tukan lahaa haddaad leedahay waxbarasha xagay ka bilaabantaa kow waxay ka bilaabantaa waxaad aakhiro ku badbaadi lahayd furuudulacyaanka fardulcayn wixii kugu ahaa ayaad aakhiro ku badbaadi lahayd inaad tawxiidkaaga saxato inaad salaadaada saxato haddaad baacmushtarta inaad baacmushtarkaaga saxato haddaad reer leedahay reerka sida loo qabo inaad saxato noloshaadanaad ku nooshahay waxa islaamku uu ka qaba ee janno iyo naar lagu kala gala inaad saxato inaad taa saxataa dee waxay u baahan tahay cid ahli cilmi iyo wax ku bari karta inaad ku xidhanto masaajidda iyo dhulka wax lagu baran karaya inaad tagto haddii bidaayaadka hore laguu dhigo dee waad meelaha kalena waad kasii baran kartaa nadka iyo wixii la halmaalay waad xataa maanta dee nadka waxaa ku jira macallin markaad doonto aad aamusiinayso markaad doonto aad ka hadlinayso aan cadhoonaynin oo xanaaqaynin oo ku diidaynin oo wax kasta waa dhib waa yaro leeyo tarkiiskaa ka lumo dadku inta badan dumarka u badan qolada bahlada dhegaysto iyadoo kijada ku jirto unbay shidaadhan waxay tiraa kitaabkaa waa dhameeyey bariiskaanay karinaysay kijada agteedu buu ka baxayay laakiin haddii si caadiya uu qofku tarkiis siiyo uu soo jeesto oo uu ku talagala inuu waxbarto waxbuu baranaya marka waxaan uga jeedaa waxbarashada rasmiga ah kow furuudul acyaanku ka bilaabantaa wixii aad aakhiro lagu weydiinaya aad ku badbaadisa inaad barato kadibna wixii kale ziyaada inaad barato تفضل عليكم السلام aqoontu qofba meel bay u joogtaa qofbana meel baa looga bilaabaa waxbarasha gebigeedba saddex shay horta haddaad hesho waxbaad baran kartaa wuxuu doonaba wuxuu ha ahaado saddexda shay ee waxbarashadu aanay ka maarmin waxa weeyaan curriculum manhaj aad raacda inuu jiro haddii aad maalina bukhaari in ka soo dhegaysato maalina tirmidiga dhegaysato maalina riyaad saalixiinka dhegaysato weligaa wax baran maysid waa inuu jiraa tasalsul manhaji oo la raaca cid kastoo dunida fanni kasta wuxuu doonaya ha noqdo wax kastoo bini aadamku ku talagalay inuu bartaa manhaj la raacaa jira silibas la raaca waa inuu jiraa oo halkaana ka bilaabma xaggaana aad ku dhammaynayso waa marka koowaad wakti muxadadina waa inuu jiraa waxa iska madaxa furan le lama barto hadaad tiraahdo waad baran doontaa ee maalina dhegayso maalina ka soo noqo waxba baran maysid waa inuu time fixida yeeshaa kitaabka kan waa inaad ku tala gashaa maalan 2 bilood inaad ku dhigato waa inaad 2 bilood saad ugu dhigan lahayd waa inaad jadwalkeedii dejisaa that's why iskuullada iyo jaamacaadka iyo waxa kan loogu sameeyey teeramyada iyo waktigaaba inuu qofku intaasoo chapter ama intaasoo buug u dhigto hadduu iska furan yahay waad caajisaysaa maalin waad bilaabaysaa maalin waad joojinaysaa maalin waad ku soo noqonaysaa maalin waad ka tegaysaa waxaad arkaysaa un iyadoo sanad kaa tegayo aad weli buuggii dhammaynin marka waa inuu curriculumku wakti go-aan leeyo aad ku tala gashay inaad barato ka saddexaad waa macallin ama murshid ama mushrif waxaa doonta dheh inaad leedahay cid guidance ku siisa waxa haddaad bilow tahay waxaad u baahan tahay macallin rasmiya haddaad waxoogaaga hore soo baratay waxaad u baahan tahay cid guidance ku siisa markaa kuu tilmaamto kitaabada aad marayso waxa aad adeegsanayso
wixii kaa qaldama ama aad fahmi kari weyda ama aad saxi kari weyda aad kula soo noqoto kuu saxa waayo macallinku 3 shayba uu kuu qabanaya waqtiga uu kuu koobaya oo waxaad adiga fahamkeeda iyo akhriskeedu saacada kugu qaadan lahayd buu rubuc saac kuugu sharxi karaya laba wuxuu kaa ilaalinaya inaad si qaldan wax u fahamto waxa laga yaabaa intaad masalada akhriday inay isku kaa dabarogto aad si kale u fahamto waxa meesha ku qoran waxaan ahayn adigu aad fahamtay laakiin haddaad macallin leedahay wuxuu kaa saxaya inaad si fiican u fahamto saddex waxa laga yaabaa inaad fahmiba kari weydo macallinku wuxuu fudaydinayaa inuu ku fahamsiiyo idan wax badan aad u baahanto macallin keenaya haddaad markaa bilowga joogto kama maarantid macallin rasmi ah haddaad meel hore joogtana waxaad u baahan tahay cid guidance ku siiso aad kolba wixii aad akhrisanaysay ama aad waday ama aad baadhaysay aad kula noqoto wixii kugu adkaada saddexdaa shay haddaad isla hesho qof kasta wax uu baran karaa markaa halkaad ka bilaabaysaa halkii wax kuu joogeen bay ku xidhantay macallinkaaga markaa u taga aad rabto inaad wax ka daraasayso isagaa ku qiimayn doono ku odhan doono waxaad u baahan tahay waxa inaad barato ee halkaa ka sii soco عليك السلام luqadda carabiga ahi qaybo ka midi dee salaadu ka asix mayso haddaanad af carabi ku hadlayn oo qur-aan baad akhriyaysaa kan baad akhriyaysaa dee kaama asaxayso haddaad rabto inaad dee si fiican wax u fahamtana wax waliba luqada asalkee uu ku qoran yahay baa loo tagaa luqaadku sidoodaba laakiin waabay baari yar ahaayeen imika maaha waxa laga yaabaa dadka inta ugu badan inay halkan yimaadeen iyadoo ingiriisi aqoon soo maaha course 6 months 7 months sabuu bartay dabeetana wuxuu noqday qof ingiriisiga saa caadi uga hadli karaa maanta luqaadku maaha barrier af Chinese haddaad rabto inaad barato just a course of 9 months ayaa kugu filan adigoo luqada ka umiya haddaad jaamacadda timaado dee intensive course baa lagu siinaya kadibna jaamacaddaad fadhiisanaysaa maanta haddaa idinku halka jooga laydin idhaahdo jaamacad jarmalaa laydin diray jarmal baa wax ku baranaysaa intensive course yaroo 9 months baad geli dabeetana jaamacaddaad fadhiisan marka luqadu wax weyn maaha afku doonaba ha noqda ma carabi ha noqda ma ingiriis ha noqda qofku hadday wax kaga xidhmaan luqo tii hun gurigoyna kaga xidhmay dee wada baranee jannada ku xidhantay maynan baran karaynin ya yani luqadu problem weyn maaha qofka bini aadamka inuu luqa bartaa luqaadka caalamka maanta aad bay u fudud yihiin qofka u xidhxidha un languageyada ka mida kuu doonaba ha noqdee inuu wax ka bartaana si fudud buu u baran karaya waxaan tilmaamnay cilmigu kutubta ku jira mafaatiixdeeduna waa biyad الculamaa aqoon-yahankaa furahaya culumta badh iyagu inaad qof carabkii kala kulanta mooyaane buug lagama qaato maalan qur'aanka buug lagama barto waayo waxaa la rabaa qaabka wax loo akhrinayo waa pronunciationkuna maaha wax buug laga dhigtay waa wax carabkaaga la toosinayo
markay noqoto quraan inuu qofku baranayo soo akhrinayo de waa inuu cid kala kulmaa culumta kale markay joogto isku wada mid maaha culumtu qaar qiraa'adooda fududay baa jira laakiin cilmi kasta waxay yidhaahdaan basiga waa inaad cid kala kulantaa oo cilmi kasta wuxuu leeyahay mustalaxaad u gaara qawaacid u gaara oo haddaanad basiga si fiican u fahmin ay adag tahay inaad hore u socon karto marka waa sababta ay u leeyihiin culamadu cilmiga kutubku u yaalla laakiin furayaashoodu waxay ku jiraan bay dhahaan biyad alculamaa waa inaad furihi heshaa markaad furaha hesho wixii ka dambeeya ayaad kori kartaa socon kartaa أفلا وقتك سلا دقالي سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك